يا من عصيت الله يوما غافلا أنسيت أن الله قد أعطاك نعم عليك كثيرة لو صنتها لأطعت خالقك الذي رباك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا walaasha waxay idin soo gudbinaysaa barnaamij ka hadlaya sacadeynta. barnaamijkeena waxaan kaga hadli doonaa daawooyinka dumarka ay marsadaan, maadooyinka ay ka samaysan yihiin iyo dhibaatooyinka ay keeni karaan, iyo sidoo kale diiniyan markii gabadhu ay isticmaasho maxaa ka soo gaaray maadaama ay bedelayso abuurkii alle. barnaamijka waxaa idin soo gudbinaya walaalo dhanka diiniga wax ka dhihi doono, iyo sidoo kaleeto titoraysa Faiza Sheekh Ibrahim oo iyana dhanka caafimaad wax inooga soo jeedi doonto, iyo anigoo ah xiriiriyaha barnaamijka Deeqa Xasan Wabar. إلى سبحانه وتعالى وحنا ويديسانينا إنه نوافجيو وحو جعلي الرالين وكيهاي إنتا نقول قلن برنامج كين وحنا كفر فرنينا آياتها قرآنك وحنا إنه أقرن يسو ولا شين بئيسة قليف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو ضلنهم ولو منينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. الله ينوعفه هننا ينغيلو كوي قرآن كلنول. waxaan guda galeynaa barnaamijkeena waxaan jeclaan lahaa su'aasha ugu horeysa inaan weydiiyo walaasheen Istar Ali. Istar daawooyinka gabdhaha dumarka ay adeegsadaan sababaha ugu weyn oo isdhihi karto gabadhu way u adeegsanaysaa maxaa keeni karo gabadhu inay saacadeyso? bismillaah, waxaa loo marsadaa qurux oo waxay gabadhu qurux u aragtaa inay cadaanta ku jirto, mana jirto qaacido qurux la yiraahdo oo insaanku isku raacsan yahay. sababtoo ah dadka cadcadka ee Yurubeeniska waxay qurux u arkaan midabka kafayga. sidaa darteed quruxu waa qofka dhaqankiisa. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu naga abuuray suuratan ugu wanaagsan haddii aan ku qancayno. وتولي الله سبحانه وتعالى في سورة التين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وانو أبورنا حقيقة إنسانكي سورة ugu wanaagsan baanu ka abuurna dhaxdeeda. haddii arintu sidaa tahay walaasheeda muslimadda ahay adigu ma waxaad ku qanacsan tahay inaad bedeshid madabkii Allah subhanahu wa ta'ala kuugu talagalay? Allah subhanahu wa ta'ala uga baq arinkaas. waxaad ogaataa inay jiri doonto maalin aad ka shalay doontid shalaytan aysan waxba ku taraynin. waxaad ogaataa inay jiri doonto maalin aad ka qoomamay doontid waxyaabaha xuxunka oo aad ku faraxsantiid dunidan tusheeda qoomamana aysan waxba ku taraynin. walaashayda muslimadda ahay ha doorinin jirkaaga hana bedelin madabkaaga. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. sidoo kale waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo walaasheen Bishaara Ciise. Bishaara sidee walaal ay ka dhaawayjisay gabadha sababaha ugu badan ee daawooyinka ay u marsanayso abaayo waxay inoo sheegtay inay tahay qurux wana sida xaqiiqada ah gabadhu inay qurux u marsato. marka waxaan jeclaan lahaa maadaama anaga dad muslimiin aan ahnay in la isqurxiyo gabadhu inay isqurxiso diinteen maxay ka diray in la isqurxiyo? bismillaah, guud ahaanba quruxda diinteena way noo banaysay.
allana wuxuu dhahay xarimay quruxda aan u soo dejiyay adoomadeyda nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay Allah subhanahu wa ta'ala wuu qurux badan yahay quruxdana wuu jecel yahay marka Allah hadalkiisa iyo nabigeena sallallahu alayhi wasallam hadalkiisa waxaan ka qaadanaynaa in ay guud ahaan quruxdu tahay wax banaan laakiin waxaan banaanayn in xadkana loo kugu talagalay laga gudbo rag iyo dumarba sida hadda barnaamijka miiska noo saaran oo marka iscadeynta marka quruxda iyada guud ahaan waa la kala qaadaya oo waxa jirta qurux mid banaan iyo mid aan banaanayn jirta hadii aan ku hormarno quruxda mideeda aanan banaaneyn waxaan banaaneyn in fanax la isku yeelo in macnaha baararka la xiro in timaha kale lagu xiro in jirkii la durduro iyadoo markaas waxyaabo midabayna lagu shubaayo iyadoo quruxna la raadinayo sidoo kale Abdullah ibn Mas'ud ayaa wuxuu dhahay yani waa xadiis oo leeyahay Abdullah ibn Mas'ud la'ana Allahu al-washimat wal-mustawshimat wan-namisat wal-mutanammisat wal-mutafallijat lil-husn al-mughayyirat khalq Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu lacnaday kuwa durinka sameeyay iyo kuwa loo sameeynayo kuwa baararka xiray iyo kuwa dalbanaya in loo xiro iyo kuwa fanaxda sameeysanaya ilkii qorqorayo intaas oo dhan waxay u sameeynayaan waxay tahay qurux darteed ay raadinayaan marka waxay bedelayaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala sidoo uu abuuray marka xadiiskana waxaan guud ahaan ka qaadanaynaa in ay tahay marka inaysan banaaneen oo qofku lacnada Allah subhanahu wa ta'ala uu ku kasbanayo hadii uu yaani qalqiga Ilaahay sidoo uu abuuro qofka hadii uu bedelo ayaan ka qaadanaynaa xadiiskan marka gabdhaha muslimaadka waxa la rabaa inay ka fogaadaan shay kasta oo markaas u soo jiidaya in Ilaahay subhanahu wa ta'ala sidoo uu abuuray yaani bedelaay wixii u soo jiidayaba inay ka fogaadaan la rabaa hadii kale waxay kasbanayaan Allah subhanahu wa ta'ala xariistiisa oo laga fogeeyo waxa jirta marka laga tago quruxda inta aan loo baneynin waxa ka badan in badan oo yaani naloo baneeyay ee gabadha isku qurxin karto jirkeeduna oo u qurxanaanayo u dhaldhalaalayo waxayna ka badan yihiin inta yarta oo naloo baneeyay ay ka badan yihiin waxa jirta waxyaabo fara badan ee gabdhihii hore ay isticmaali jireen ilaa haddana wali ay qaar ay isticmaalaan oo ah marka waxyaabo dabiici ah oo wax dhib aan gabadha jirkeeda u geysanaynin diiniyan iyo caafimaad ahaanba aan dhibaato u geysanaynin ayna ku qurxsanaanayso sida waxyaabaha hadda huruudka oo kaleentooda timirta malabka liinta baradhada waxyaabo fara badan ay jiraan ee gabadhu marka isticmaali karto oo waana wax dabiici ah wax dabiicina sidaan ogsoonahay wax dhib ah qofka kuma keenan ilaa inuu qofku markaan si xasaasiye iyo waxyaabo saas ah inuu ku qaado ma ogi wax dhib ah kuma keenayaan yaani jirkana uu qurxonaanaya marka hatta qofku waxa la rabaa quruxda inta loo baneeyay hatta inuusan qofku ku tarax tagin oo dhaxdhaxaadsado oo yaani in ka badan horta intuu qofku jirkiisa ku mashquulay in ka badan inuu ruuxiisa ku mashquulo sababta ah qofka quruxdiisa hadii uu jirkiisa oo muhiimad siiyo jirkina uu qurux badan yahay akhlaaq iyo dabeecad wanaagsan oo dadka kula dhaqmo inta sana uusan haysanin yaani wax ay taraysa haba yaraatay quruxda qofka uu leeyahay ma lahan yaani quruxda guud ahaan waxa iyada loo kala qaadaya mid yaani qofka siisa banaan quruxiisa waxay tahay waa la kala qaadaya qurux muuqaal ah iyo qurux waxa gudaha ah qurux macnaha banaanka ah iyo qurux gudaha ah kala qaada quruxda marka mideeda banaanka ah waa macnaha jirka qofka oo kaleentood quruxda gudahana waa midda qalbiga ah yaani midna way dhamaata midna yaani ma dhamaata abadan marnaba ma dhamaanayso waana midda gudaha ah oo qofku akhlaaqdiisa iyo dabeecadiisa ay wanaagsan tahay midda muuqaalka aan sanadba sanadka ka dambeeyo yaani jirka qofkii uu si baaba'aya duqnima soo galayso jirka uu isku imaanaya meena imaanayso marka quruxdu waa mid tagayso oo muuqaalka marka hatta qofka waxa la rabaa oo isqurxinayo oo dadaal jirkiisa ku sameeynaya inuu dhaxdhaxaad ka dhigto uusan ku taraxtagin oo macnaha oo yaani ruuxdiisa in ka badan uu qurxiyo inta uu jirkiisa qurxinayo ya qadim al-jismi kam tas'a li khidmatihi atadlubu ar-ribha fi ma fihi qusran aqbil 'ala an-nafsi wastakmil fada'ilaha fa anta bir-ruhi la bil-jismi insanun midka u dadaalayo jirkiisa imise ayaa dadaal ku bixinaysa oo adeegista jirkaada ma waxaad faa'iido ka raadinaysaa meel ay qasaaro kuugu sugan tahay naftaada qaabil oo u dhameystir iyada akhlaaqdeeda iyo dabeecadeeda u dhameystir adigu qof kuma tihid jirka iyo muuqaalka laakiin waxaad qof ku tahay waa ruuxda marka waxa la rabaa in gabdhaha muslimaadka ah in ay in ka badan inta ay qofku yaani oo ku mashquul lahaa jirkiisa inuu ruuxdiisa ku mashquulo hab dhaqankeedii iyo wanaageedina u dhameystiro intaasaan ku soo koobaya wabillahi tawfiiq salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sidoo kale waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo tutoresa Faiza Sheekh Ibrahim gabdhaha iscadeynayo daawooyinka ay marsanayaan kiimika ku jirto maadooyinka ay ka sameeysan yihiin iyo dhibaatooyinka
ka dhalan kara inaa wax inooga sheegtidaan jeclaan lahaa. bismillaah oo hore hadda qeexo iscadeyntu waa maxay caafimaad ahaan. iscadeyntu waxa weeyaan ayada in laga imaado in la zuuliyo midab ayadoo loo socdo midab kale. tusaale iscadeyntu waxa hadda waaye in qofkii midabkii madowaa zuuliyo oo asoo socdo midab cadaan. sidaan ka warqabnana midabka madow qofka leeyahay waxa sameeyo melanin maada loo yaqaano. melanintaas waxa laga soo saaraa unuryada jirkeena kuwa loo yaqaano melanocytes. melaninta shaqada u weyn ee jirkeena u qabato waxa weeyaan inay naga difaacdo shucaacada ee qoraxda soo dayso radiationka loo yaqaano ee u sameeysa difaaca jirkeena. melanintu macna ahaan ayada waxay ka timaada ergariid ah oo macnihiisu yahay madow. macnaheedu waxay tahay hadda qofka melaninta marba ay ku ziyaado uu sii madoowaanaya, marba melaninta lala dagaalamo ama ay yaraatana qofka uu cadaanaya. sababahaas darteed ayaa looga faa'iidaystaa oo melaninta daaweyn waxaa la sameeyaa melanintu yareeyo qoraantiina loo isticmaali jiray waxyaalaha caafimaad ah. haddaa u imaado maadooyinka ka samaysan yihiin daaweyn la isku cadeeyo waxaan kala qaadayaa labo nooc. nooca koowaad waxaa lagu daraa maado loo yaqaano steroid. steroid waxaa loo isticmaalaa caadiyan in lagu daaweeyo xanuuno badan ee soo wajaha qofka ayadoo la siinayo xaddi qiyaasan loona dhexaysiinayo waqtiyo. laakiin shirkadaha sameeya daawada isku cadeeyo waxay sameeyaan steroid maadadaasi oo xaddi aad u badan ay ku soo daraan daawada isku cadeeyo si midabkii ugu yaraado. caafimaad ahaan waxay dhibaato ay leedahay oo qofku wuxuu ku sababtaa dhibaatooyin dhowr ah. waxaa kamid ah gabdhaha isticmaala daawada isku cadeeyo in meelaha ay iska cadeeyaan tusaale wejigii iyo gacmihii ka soo bixiso xaad aan loo baahnayn oo in badan caadiyan waxaa ragnaa gabdhaha is cadeeya inay wejiga xaad ku leeyihiin sida duf iyo duf aad u badan inay wejiga ku leeyihiin gacmaha sidoo kaleeto. waxay sababtaa timaha caadiga ah inay daadiso ay qafiifiso. waxay sababtaa steroid qofkii inuu qaado cudur loo yaqaan Cushing syndrome oo ah in dhiigii dufan ee raacdo loo yaqaan steroid. dhibaatooyin dhowr oo aad u badan sababaan inuu qofkii jirkiisa kala midab noqdo sababtuna ay u wacan tahay maadada uu isticmaalayo inaysan si isla mid ah dhammaan u cadeynin jirkii. oo hadda in badan waxaa ragnaa in la dhaho daawadan wejiga lagu cadeeya, daawadan gacmaha lagu cadeeya iyo wax lamid ah. nooca labaad ee daawadan la isku cadeeya ay ka kooban tahay waxa weeyaan lagu daro maadooyin yareynayo melanintii aan soo qeexnay oo sameynaysa midabka madowga. melanintu maadooyin lagu daro ee yareeya waxaa kamid ah waxa loo yaqaan mercury oo loo soo daawiyo HG. ayada waa metal oo curiyo bir ah. curiyahani wuxuu ku yimaadaa noocyo badan sida inuu noqdo dareere iyo inuu noqdo te. curiyahani waa curiyo bir ah hadana sun ah ku ah qofka bini'aadamka haddii qofku uu qaato xaddi dhan 1 gram ee u dhudubta dhiiggiisa waxay samaysaa inay xadido xididadii dhiigga qaadayay isla markaasna qofka uu xaalad emergency gala sababtoo ah dhiiggeenu wuxuu wadaa nutrientin iyo wuxuu wadaa iyo oxygenadii haddii unugyada jirkeena ay daari waayaan intay u baahnaayeen xaddi ahaan oxygentii iyo nutrientii ay rabeen qofkii xaalad halis ayuu galaa. sidoo kale wadnihii dhiig ku filan ma gaaraayo. curyaha marka loo yaqaano qofku wuxuu ku sababaa haddii uu laazimo oo waqti badan qaado dhibaatooyin dhowr ah. wadamada qaarna waa laga mamnuucay. hase ahaatee daaweyn isku cadeeyo xaddi aad u badan ayaa laga soo buuxiyaa si midabka loola dagaalamo. maadada labaad ee ku jirta daawadooyinka la isku cadeeyo ee la dagaalamo melaninta ama yareeya waxa weeyaan maadada loo yaqaan hydroquinone. hydroquinone ayada maadadani caalamka guud ahaan waxa laga mamnuucay 2001 sababaha uu wacan in loo mamnuucana waxay tahay in lagu sheegay inay sababto carcinoma wax loo yaqaano oo macnaheedu yahay kansar ku dhaca maqaarka inay sababto ayada loo mamnuucay. balse hadda waxay sameeyaan shirkadaha daaweynta soo saaro xaddi ayada aad u badan ku soo qariyaan ayadoo sheegay in daawadan ku qoran tahay laga soo saaro waxyaalo dabiici ah. daawadani hydroquinone daawooyinka lagu soo saaro dhammaan intooda badan waxaa lagu iibiyaa warqad la'aan wax loo yaqaan over the country yani wax warqad lagu iibiyo si caafimaad ahaan wax si dhuumashaad lagu iibiyo mise qofka inuu meel taga oo soo dhaha daawo hebel u baahanahay inta badan lagu iibiyaa. daawada labada daawo hadda aan soo sheegay mercury iyo hydroquinone labadooda waxay leeyihiin dhibyo dhowr ah. waxaa kamid ah qofka marka oo mercury isticmaalayo haddii uu laazimo in ay ku sababto kaliya xanuun iyo maskax xanuun iyo calaamado aad u badan. midda labaad ee inaan hadda ka hadlo arabo waxa weeyaan shirkadaha daawooyinka soo saara waxay adeegsadaan inta badan ay ku soo sawiraan daawooyinka waxyaalo dabiici ah
ayadoo sheegay in daawadan laga sameeyo wax dabiici ah waxaan rabaa inaan dhaho caadiyan haddii loo fiiriyo maadooyinka daaweynta samaysiin horta waa wax kiimikaaleed sababtoo ah wax dabiici ah oo alla abuuray oo dhulka ka soo baxay ma bedelaan wax dabiici ah lianna waxaan odhanahay midabka madowga lala dagaalamaayo waa midab dabiici ah wax dhulka soo baxay oo sida bambayda iyo waxyaalaha lagu soo sameeyo daawooyinka inay bedelaan suuragal ma aha wax dabiici ah waxyaalaha alla abuuran isma bedelaan cudurada ka imaanaya qofka markuu isticmaalo daawooyinkani iyo dhibaatooyinkeeda aad u badan yihiin tusaale qofka waxay qalqal galiyaan dheecaanada qaar androgen iyo estrogen iyo progesterone wax loo yaqaano waxa aragnaa maamada markay uur leedahay in dheecaanadaasi marna ay bataan marna ay yaraadaan daadis waa sababta hooyada uurka leh inta badan wajigeeda uu haaro u fuulo ama waxyaalaha ayada lagu aqoon ee jismigeeda soo fuulaan sidoo kale daaweyntan la isticmaalayo waxay qalqal geliyaan glandis qanjiro aad u badan sida qanjirada laga soo daaya dhididka sweeting gland loo yaqaano inay marna yareeyaan marna badiyaan inta badan hadda waxaa aragnaa gabdhaha is cadeeya inuu dhididka aad u badan yahay haddana uu qurmoon yahay qofka laga dareemayo inuu daawadan isticmaalo aniga waxaa xaadir ahaa qisa ku dhacda gabadh aan diris ahayn gabadhaas waxay isticmaalaysa daawooyinka la isku cadeeyo dhibaato ayaa kasoo gaartay wejiga ayaa ka halaabay isbitaal la geeyay meel jawala joognay aad u kulul isbitaalkii wuxuu usoo qoray daawooyin hal bil soconaayo daawooyinkii wax uu tari waayeen waa lagu celiyay wuxuu dhahay gabadhan waxaa daawo ah in dhididka oo ka imaado dabcan waxaa joognay gobol aad u kulul xilli maarsna waa la joogay gabadhii waxay samaysay xilli duhore soo laabatay intaa oo joodaray soo qaadatay was dur saartay xilli duhore seexatay 9 saac amal soo toostay ilaa al'aan magaaladana ay kulushahay xilli maarta la joogo joodariyaal iyo meel huul ay hoos dhashay hal xaboodidu ka imaan waaye laana caafimaadkeeda ku xirnaa wana ka imaan waa sababtan waxay ahayd inay daawooyin hore u isticmaashay in la dagaalantay qanjiradii soo daali lahaa halkaas ayaa kaga baxaya walaashay deeq sidoo kale waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo walaasheen Faiza Khaliif Faizo iscadaynta marka diiniyan laga hadlayo waa maxay iscadaynta ruuxa inuu iscadeeyo diiniyan waa maxay wax inooga tirayaan jeclaan lahaa adigana السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام هدي أن كجواب ولا شيء سؤاشي ويديسي إسعادينت وروحا إنو كوقن عوايه صدكي وربي وسيي ونقاط أمرك إبليس الله سبحانه وتعالى أسيقو نوتي الماما يهدلك إبليس وحوليه ولأمرنهم فلا يغيرن خلق الله وأن أمري مركزي بدق دونان أبوركاغا الله سبحانه وتعالى وحو كتلمامي روحي قاتا أمرك إبليس إنو يهي روح قصاري عد ما waxaad ku qanciweysay midabkan madow ee rabbi ku siiyay maxay kula tahay midabkan madow inuu yahay ceeb ma waxaad is leedahay midabkan madow cid kugu guursanaysa malahan taasi haddaad aaminsan tahay waa mid qaldan nabigeena naxariisii nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ayaa noo tilmaamay gabadha waxyaabaha lagu xusho waxaana u daliila xadiiska uu warinaya Abi Hurayra oo ka warinaya nabigeena sallallahu alayhi wasallam inuu yiri haweenka waxaa loo guursadaa 4 arin inay tahay mid maal leh inay tahay mid mansab ka soo jeeda inay tahay mid qurux u saaxiiba inay tahay mid diin leh nabigeena naxariisii nabadgelyo korkiisa ha ahaatee ayaa nooga tilmaamay midaan ka dooran lahayn inay tahay midda diinta leh abaayo ha ku kadsoomin mahmaada xun ee Soomaalida ay leeyihiin doqon iyo habeena madow cadaankuna kama fiicno madowga Allah subhanahu wa ta'ala xaqiisa waa loo siman yahay waxa lagu kala sareeyaa oo alla xaqiisa looga dhow yahay waa taqwada qofka intuu ka cabsi badan yahay ayuu alla kaaga dhow yahay ee ku qanac midab sadkii uu rabbi ku siiyay taasaad aakhiro iyo adduun ku liibaanaysaa waxaan soo laabanaynaa tutoresa Faiza Sheikh Ibrahim Faiza dad markaa noo sharxisay waxa in badan nooga hadashay daawooyinkan caafimaad ahaan hadaladaadiina waxa ka dhawaajisay oo ku jiray waagii hore waxa loo soo dejiyay caafimaad ahaan oo waxa loo isticmaali jiray daawooyinka caafimaad ahaan dumarka hadda joogana waxay u isticmaalaan inay madabkii ku zuuliyaan weyna joogtayaan oo si oo toos ay u isticmaalaan marka waxa jeclaan lahaa daawooyinka badana ee gabdhaha isticmaalaan iyo si u isticmaalaan iyo shalay maadaama caafimaad ahaan loo soo dejiyay hadda sidoo isticmaalaan inay gabdhaha u sheegtid bismillaah deeqaada u mahadsantahay walaashay طبعا وارن او داوينتا او هورين تاريخ ahaan waxay ahaayeen daawooyin qof lagu daaweeyo xanuuno sida waxa lagu daaweyn jiray finanka madowga haaraha casaanka iyo waxyaalahaasi qofka hadii madabkiisa uu kala nooc yahay oo kale lagu daaweyn jiray balse hadda
waxay u isticmaalaan dumarka Soomaaliyeed iyo dhammaan qaaradaha laga isticmaalo iscadeynta in midab la zuuliyo daawooyinka caadiga ah ay waxay u isticmaalaan si qaldan ayadoo xaddi ahaan badsanayo xaddi qofka loo qor lahaa qofka xanuunsana haddana laazimayo oo daawooyin qofka marka loo qoro tusaale xad waqti la dhaxaysiya oo subax ka subax amal loo qoraa laba isbuuc saddex isbuuc dabcan waa la siiyaa oo waa loo qoraa ay waxay sameeyaan way laazimaan bilooyin iyo sanado dhowr ay qaataan xaddigana way badiyaan haddase waa la sii ilbaxay oo waxaa jira daawooyin si gooni ah lagu soo saaro si loo cadad hadda glutaathione ayaa kamid ah daawooyinkii hore marka oo caadiyin caafimaad ahaan loo isticmaalayay haddana ku faafay dhulka Soomaaliyeed ee u isticmaalaan si ay midabka u zuuliyaan waxaa kamid ah daawada loo yaqaan Diana iyada waxay ka kooban tahay maadooyin dhowr ah sida bismuth salicylic acid barbum iyo baronias wax loo yaqaano iyo maadooyin aad u badan daawadani oo Diana loo yaqaano gabdhaha Soomaaliyeed si qaldan ay u isticmaalaan oo si ay midabkooda ugu zuuliyaan laakiin caadiyin waxaa loo isticmaalaa si loogu daaweeyo finanka madmadow ama findoobta daawada labaad ee Soomaalida isticmaalaan waxaa kamid ah shiirley daawo ay la baxeen daawadani waxaa loo isticmaalaa caafimaad ahaan waqti hore oo waxa lagu daaweyn jiray finanka madmadow iyo waxa lagu daaweyn karaa haraha wajiga soo fuula iyo casaanka qofka hadii uu kala cadaado meelna ay madowdahay waxa loo yaqaan vitiligo ama leukoderma wax loo yaqaan ayaa lagu daaweyn jiray daawada saddexaad ee Soomaalida isticmaalaan waxa weeyaan bidnofeed wax loo yaqaan ama midan dhibac ee Soomaalida u taqaana bidnofeed ayada waxay ka kooban tahay maado loo yaqaano corticosteroid oo hadaa soo sharaxnay steroid maadooyin ka yihiin daawadani qofka markuu isticmaalayo saacadeen ahaan uu isticmaala saddex shay buu sameeysaa tan koowaad waxay ziyaadaa miisaanka talabaad miilaniinta ay la dagaalantaa qofkii way cadeysaa ta saddexaadna waxa weeyaan waxay la dagaalantaa difaaca jirka protection qofka uu lahaa daawadan bidnofeed dhibaatooyin dhowr ay leedahay hadii qofka laazimo ama xaddigeeda uu ka badsado dhibaatooyinkaas waxaa kamid ah inay keento cancer in uu qofka hadii uu dhaawacmo cancerka ka hadlayo waa carcinoma wax loo yaqaano oo ku dhaca maqaarka talabaad waxay keentaa qofka hadii uu dhaawacmo inuu wadni healintii dhaawac inuu qofka ka badsado inay waqti dheer qaadato laana difaaci ayaa yar oo maadada ay la dagaalantaa daawada afraad oo la hadda la isticmaalo waxa kamid ah daawada faiza oo hadda dabcan caalamka aad ugu faaftay Aasiya iyo Soomaaliya iyo inta kale laga isticmaalo daawada faiza inta daawooyin hadda soo sheegno ka qatar badan tahay oo ayada maadooyinka laga helo ayaa aad u saameyn badan daawadani qofka caadiga markii loo qorayo xataa isbuuci looma badiyo daawo ahaan ayadana waxa lagu daaweeyaa finanka madmadow waxa ka soo tagay bidnofeed waxa lagu daaweeyaa allergiga ama xasaasiyadda Soomaalida u taqaano inflammatory skin inflammatory wax loo yaqaano oo ah caabuqyada dhaca maqaarka sida casaanka bararka xumada iyo xanuunada ku yimaada maqaarka lagu daaweeyaa waxa lagu daaweeyaa haaraha iyo waxaas lamid ah hadaa u salaato faiza iyadana waxa lagu daaweeyaa finanka madmadow وانا داوينتا دمعان aad u isticmaalaan dhaha Soomaaliyeed shanta daawo aan soo sheegay wax ka badan waxay u isticmaalaan si qaldan oo ah inay ka badiyaan xadiga qofka loo qor lahaa qof caafimaad ahaan lagu daaweyn lahaa xaddi ka badan wana laazimaan hadana waxay saaran cadaadisyo ay loo sameeyay ku xiraayo sharaabada ama bacyo ama waxay qamiiriyaan daawadii dhibaatooyin ayaan ka soo wajahayo gabadha waxaan dhihi lahaa istadaaya daawooyinkaasi waxa rabaa inaan fursadan ka faa'iideysto oo aan ku darsado maanso bismillaah maansada waxay ku bilaabanaysaa midabkan qorxoone maarin dhalaalka madow loogu magac daray mawlihii tusiyaa mahad badan lahaadee maadaysa aadine ha ku daali meel kale haasmarin diyaano hadoon doonin midab kale ma ogtahay inaad tahay dhamays eeba uuntii dhaawac iyo dhibaatiyo dhabanadoo la naafiyo ha u qaadan qurux dhaba dhalaal iyo iftiin dumar dhabtii waad qorxoontee dhab u hayso diintoo kuna dhaada dhaqantoo dhawaqiina maqalo dheeldheel ha moodine waan dhameeyey curintee ila faham dhamaalkan waana maqsantahay ما شاء الله تدوريس فايزة إله سبحانه وتعالى كحفديو ولا لها كالنتا أتكلهد ودنك عافماد واتكا صباح ذو ودو شيكتي سيدو كلا من سدا ذن رنهانتي آدي يتابتي أنيق قاسة وان دريمي ولا لها ماشي لفدين عن رجينا إنه إيغن سيدو كلاتو إيا قبر والبودي قيسان دون برنامج كينا سيدو كلو حان جعلا لها إنا سؤال شويدية إيادنا ولاشين حسن أبوكر حسن داوين كقبلها مرسانيان
ima gabadha waxay u dhaxaysaa guriga reerkeeda oo ninkeeda gurigiisii ayay joogtaa ama waxay joogtaa family oo reerkeeda hooyadeedii aabaheed ayay la nooshahay daawadii waxa laga soo bixinayaa lacag oo daawadii ciida laga soo xaaminayo qarash ayaa la gelinaya waana nolosheeda wax ka saayid ah ay u baahan tahay oo gabadha biil joogta ay u baahanaysaa ma la dhihi karaa xadgudub ayay ku tahay dhanka maalka diiniyan markii loo eego iscadeynta bismillaahi ama bacdu su-aasha ay weydiisay walaashay maalka xadgudub ma ku tahay iscadeyntu haa way ku tahay xadgudub oo maalka waa la isweydiinayaa maalinta qiyaamo adoonkuna ilaahay kama horwareegayo ilaa la weydiiyo su-aalooyinkaasna waxaa ka mid a qofku maalkiisa meeshuu ka keenay iyo meeshuu ku bixiyey siduu inoo sheegay imaamu tirmidi raximahullah xadiiskii 4 qayb ka koobnay abi barsat al-aslamiyi wacan maalihi min ayna iktasabahu wa fiima anfaqahu qofku meeshuu ka kasbay maalkiisa ma xalaalay ahayd ma saxaareenay ahayd meeshuu ku bixiyeyna ma meeshii ilaahay baneeyo xalaashay ahayd ma sama ahaynin intaasba waa la isweydiinayaa maalinta qiyaamo waxaa kale oo dhibaato ku tahay qofka isticmaala daawada la isku cadeeyo had iyo jeer khaasatan dumarka waxay u baahan yihiin biil dheeriya oo joogto ah isbuuciiba mara iyo in ka badan taasina waxay ku sababtaa dumarkan tii oo reer ku jirtana inay ninkeeda been u sheegto ilaa qofku waxaan dan ugu jirin ma dhiibaye ay tiraadaanba wax heblaal iiga rabaan baqaaran heblaal iiga rabaan amba meel heblaan aad lahaayo saas uga xaliso tii kale guriga hooyo aaba joogtane inay markii adeeg loo diro kale ay wax uun ka reebto amba iyadoon la ogeyn ay waalidkii wax ka qaaday ku soo gado intaasuba waa dhibaato waa xadgudub waxaa kale oo dhibaato ah in aad xoolahaagii cadaab ku bedelato waxaan ku dhihi lahaa inaad waxa ku wanaagsan in aad ku qanacdo abuurku rabbi ku siiyay midabka madow ku siiyay ama maarinka ku siiyay asigan qarash ka rabin waxa kaloon ku dhihi lahaa ilaahay ka baqa waxa loo socdaa meel aan laga dhimanaynin lagana dhamaanaynin wax walba adduunyadan lagu sameeyana leeso su'aali doono waxna aan la qari doonin wax walba sameysanayo oo cadcad lagu soo hordhigi doono marka gabdhahayna waan waanin lahaa waxaan dhihi lahaa wax walba rabbi ku siiyo ku qanac ayagaad ku badbaadaysaa ilaahayna ku aqoon السلام عليكم ورحمة الله waxa walaalaha kamid ah Faadumo Umar Xasan Faadumo walaashay waxaan ku weydiin lahaa gabadhu markay wadada marayso waa gabar cad markay nin lahaa saabayso uu xiriir guur inay ka sheekaystaan rabaan waxay u taagan tahay gabar cad gabadhi markay wiilka heshiiyaan oo kale wuxuu u geenayaa familki waxay u taagan yihiin gabar cad loo keenay wiilkooda xukun ahaan xataa markii ay bulshada ku dhex jirto gabadha waxay u muuqataa gabar cad walow gabdhaha is cadeeyo iyo gabdhaha cadaanta ilaahay u dhali inay isku ekeen oo waxyaabo badan ay jiraan sida gabadha in xididadeeda cagaarna ay soo baxaan iyo sida walaal ee sheegto waxaad ay ka soo bixayso gabadha isku soo duuduub intaas oo idil ma dhihi karnaa gabadhu waa qiyaano iscadeynta markii loo fiiriyo gabdhaha marsada daawooyinka bismillaahi raxmaani raxiim haa gabadhu iscadeyntu waa qiyaano waxaa u daliil ah xadiiskii Aisha uu wariyay Muslim rasuulkeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee wuxuu leeyahay midka isku soo dharjinayo waxa aanan la siinin laba maro oo been ah qof labisan oo kale waaye almutashabbicu bima lam yu'da kala bisi thawbay zuur marka walaasheeda muslimada ahayd ogow inaad qiyaantay nafsadaada mujtamacuna aad qiyaamayso qiyaanada ugu weyn waxay dhacdaa badankeena gabadhii xilliga la guursanayo gabadhu waxay bedelaysaa doorkii Allah subxaanahu wa ta'ala uu siiyay waxay u maleeyaan rarkii loo wado ama ninka guursanaya gabadha inay cadahay mana cado way isbedeshay wuxuu ilaahay siiyay ay taqyiir ku sameysay qiyaanaduna waxay tahay gabadhii markii la guursado maalmo badan ama bilooyin badan ee ka soo wareegay inay gabadhi isbedesho waa qiyaano nafsadeedu waa qiyaantay reerkii waa qiyaantay waxa laga yaabaa waxyaabo badan inay ka burburaan marka waxaan ku leeyahay qiyaanada iska daa ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu ku siiyay ku raali noqo insha Allah ta'ala ayada ma santa walaashay waxaan jeclaan lahaa inaan kugu soo noqdo Faadumo sina wada ognahay anaga gabdhihii hada walaalo waxay soo sheegeen in waxaan ay yihiin fal shaydaan abaayana dhanka caafimaad ay kaga hadashay maxaad wacdi iyo waana aad u soo jeedin adigoo mar labaad ku naqanaysid barnaamijka ما شاء الله جزاك الله خير إن شاء الله
waxaan ku waanin lahaa walaalahayga muslimiinta ah maadaama aan soo ogaanay daawadu inay tahay fal shaydaan yacni waxaan ku waanin lahaa ilaahay aayadiisa uu leeyahay ina ashaydaana lakum caduwun fattaqiduuhu caduwa shaydaanka cadow buu idin yahay ee cadowka yeeshta uu horan ina ilaahay subxaanahu watacaala ka baqno shaydaan amarkiisa aan ka fogaano ogow haddii aan shaydaan raacno waxyaabaha uuna amrayo aan sameyno ilaahay wuxuu leeyahay waan ka buuxin doonaa adiga iyo kuwa ku raacaba si aad u dhan tihiin jahannamaan ka buuxin doonaa marka waxaan idin leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala ka cabsada adduunkan waxaa laga yahay safar ogow rasuulku wuxuu yidhi addoon weliba waxaa lagu soo saarayaa xaaladuu ku geeriyooday waxaa ku geeriyoon kartaa adigoo marxaladii maanta kiimikada adigoo ismarinaya adigoo meelaha kiimikada lagu marsada taagan nafsadaaduna ma oga meeshaa ku geeriyoon doontid marka inaa ilaahay subxaanahu watacaala ka cabsatid qofna waxba kuu tari mayso haddaad dhimatid camalkaaga wuu go-ayaa qabriyaa lagu dhigayaa adduunkan waa ka tagaysaa xaqiiqo kullu nafsin daa'iqatulmowt geeridu ha dhayalsanin maanta waxaa lagu leeyahay war adduunyadu waa 2 maalmoode iska noolaa wax doonta samee ogow wallahi qofka sidaa ku dhahay inuusan waxba kuu tari karin aad qabriga galayso wallahi kanay jecleedee dhinaca udhiga lagu dhihi maayo danta iyo darajada waxay noogu jirtaa ilaahay amarkiisa iyo amarkii rasuulka inaan qaadano waayo addoonaan nahay addoonka waajibka saaran wuxuu yahay adiicu allah wa adiicu rasuul allah iyo rasuulkiisa inuu adeeco wax kaloo ka soo haray ma lahan ilaahay subxaanahu watacaala waa naxariis badane wax waliboo nooga digay maanta anagoo falkii dembiga ku sugan ilaahay haddaan u toobakeeno oo toobada naga aqbalaya marka waxaan idin leeyahay ilaahay ka cabsada adduunkan waad ka tagayseen safaraa laga yahay dhammaanteena waan geeriyooheena maalin waxaad ku tegi doontaa qofna waxba uu ku tari doonin nafsadaada oo kaliga eedeynayso wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad mahadsantahay walaashay baxsan cabdullaahi waxaan jeclaan lahaa walaashay inaan ku weydiiyo waxaa in badan laga soo hadlay mawduuca aan hore usoo cilaamnay oo ahaa iscadeynta caafimaad ahaan waa laga soo hadlay diiniyan inay san banaaneen waa laga soo hadlay oo waxaa soo galaya meesha in abuurkii alla la bedelayo xagga maalkii markii loo eego waxaa meesha soo galayo yacni in xadgudub uu ku yahay oo maalkii meeshii meel loogu talagal aan ahayn in lagu bixinayo dhanka kale markii laga eegana ay tahay khiyaano oo gabadhu ay dadka ku dhagrayso wuxuunan alla siinin isku soo duub intaasoo idil gabadhu way kulansaday daawada marsato annaga waxaan ahaana addooman ruuxa markuu addoon yahayna addoonnimada waxaa looga baahan yahay 2 shay oo ah in rabbi wuxuu amray uu sameeyaa yacni intii uu ka awoodana uu kala imaadaa al wuxuu leeyahay laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha qofka kaleeto asagana waxaan looga baahan yahay sidoo kaleeto in muxuu ahaaytay wixii laga reebana bataatan uu ka haraa laakiin ilaahay jaanis kaluna siiyay asagoo allana leeyahay wixii ay idin amro sameeya haddana wixii ay awoodaan kala imaada sidoo kaleeto wixii ay idin reebana ka reebtoonaada bataatanbo laakiin ilaahay jaanis wuxuuna siiyaa inaan soo laabano oo ilaahay wado wuxuu noo fura soo naqashee oo inaan ibliis camal aanan ku dhaga adeegin qaladka markaas sameeyno gabadhii way saxdaysay qaladkii way gashay maxaad ugu yeeri lahayd oo dhihi lahayd gabdhaha madabka dooriya بسم الله waxaan ugu yeeri lahaa inay rabbi u soo noqdaan aysan naxariistiisa ka qoosan maxaa yeelay Allah subhanahu wa ta'ala isaga inoogu yeerayo inaan u toobad keeno Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ku leeyahay fi suurati maa'ida miyaynan toobad keenin alla miyaysan u soo noqonin ayna dambi dhaaf weydiisanaynin walaasheedii inaad qaldantaa insaan baad u tahay balse waxa liis dheeriyahay ay liis dhaaf ayaa waxay tahay soo noqosho walaasheedii ku sii madax adkaaneen iscadeynta ka soo laabo maxaa yeelay dambiga adigoo ku jiro ayuu rabbi ku qaban karaa balse waa naxariis badan rabbi wuu ku kaadinayaa qabashada rabbina kama fakan kartid sidoo kale waxaan ugu yeeri lahaa gabadhii aanan marsanin daawada inay rabbi ka magan gasho tii marsata ee qaladkii uu ka dhacay ee ka toobad keentana inay rabbi uga shukri celiso maxaa yeelay rabbi markii nimcada laga shukri celiyo wuu ziyaadiyaa midna ogsoono walaasheedii iscadeyntu calafka soomada dejiso kamana celinayso gabar rabbi ku qoray in lagula guursado waxaan ula jeedaa hadii aan mar soo ogaana gabadhii waxay u marsanaysaa daawada inay ahayd qurux waxa ay wixii quruxdan ay ku heshay wixii ay ku doonaysay
kadibna gabadhii markii la guursaday waa ay daawada usii marsanaysa ayaa la isweydiinayaa daawada waa ay usii marsanaysa waxay tahay gabadhii waxay ninkii ka ilaalinaysaa gabadh kaloo iscadayso suusan u aadin sidaa daraaddeed waxay samaynaysaa in iyadan iscadayso walaashaydii waxaad ogsoonataa iscadeyn aad iscadayso gabadh uu rabbi kuu qor in lagula guursado kaama celinayso waxaan ku dhihi lahaa waad qurxantahay ku qanac midabkaaga waxaan isla soo gaarnay guntii gabagabadii barnaamijkeena waxaan baaq u diri lahaa dadka ka ganacsada daawooyinka kiimikaalka ee dumarka ku dooriyaan madabkooda ma banaana diiniyan in macaasiyada iyo xumaanta la isku garab siiyo gabadha iscadeynayso waxa ku siinaya garabka inay daawadaas marsato waa qolada soo dejinaysa ee wadanka keenayso ilaahina wuxuu leeyahay watacaawanuu cala albirri wattaqwa walaa tacaawanuu cala alithmi walcudwaan ilaahay wuxuu leeyahay isu kaashada samaha iyo alla kacabsiga ha isu kaashanina ithmi dambi iyo xadgudub gabadha daawada marsan lahayd haddii ay weyn lahayd waxaa laga yaabaa inay iska dayso oo iyadoonan alla kacabsi aynan ka helin caafimaadkeeda dhowrista ay dhowrayso balse laajli darteeda iskaaga dayso inay danta u saamaxaynin ilaahay ka cabsada sidoo kale waxaan iyadana baaq fariin u dirayaa walaalaha caafimaadka wax ka fahansan haddii ahleyd gabadha medisiinka barata oo daawooyinka maadooyinka iska saaran yihiin taqaano iyo dhibaatooyinka ka imaan kara haddana marsanayso run ahaantii aad iyo aad ayaa yacni u tahay wax arin looga xumaado gabadhii maanta la soo aadi lahaa markii gabar walaalaha ka mida oo jahal u geysatay markii daawadii ay marsatay gabadhii loo soo carari lahaa yacni haddii ayadaba bukaan ay tahay bukaan ma daaweeyo sababtoo ayada yaaba jiran oo maba daaweyn karto ayadii kiimikadii adeegsanayso mid kalena ogsoonoo diinteena ruuxa way alaalisay nafsada diinta way alaalisay daawadaana waxaad ogsoon tahay in diiniyan ee ruuxa u dhibayso soo gabadha jaahilada ah ee guriga fadhido aan diiniyan u ogeyn inay dhib kaga soo gaarayso caafimaadaan aan u ogeyn inay dembi kaga soo gaarayso laajil darteed u marsatay qurux ku raadi waad ka dembi badan tahay لأن أديك واتقانا وحي إسكساريهن وحن جعلنا إنت سنة كسوق جبينو وحي أن هالليلني وناق يقير إن الله حقي سايكا هذين وحي قف وينقد عنه نفتيني شيطان يكا هذين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثيرة لو صنتها لأطعت خالقك الذي رباك لأطعت خالقك الذي رباك